ama xanuunsanaya ama caruurta yaryar iyaguna waa sidaas dhalinyarada yaryar meeshan waliba gabdhuhu hore u qaan gaaraan waxa la weydiiyay 9 jir maxay qaan gaadhay fahmaysan qaan gaadhay gabadh noqotay oo salaadi ka jabtay 9 jir waa galaaskee taydi classati ya saddexaad bay fasalka saddexaad bay dhiganaysaa waa ilmo yar cabarka qaan gaadhay jirku ila been ma sheegayay ya jirku been ma sheegayo markuu jirku kaamil noqdo wuxuu oranayaa waxaan ahay maxay كامل أدوه هذا ضمن مسألة كامل باكن نقولين عرض عين كاسو كلاه مركا والد كدي مسؤولية دودي حلكو دي قيمين دودي قرنية هذا مركا سومي كران وساعدها غير لما تنكس ساعدها بش حريركا أي ودي كريان ويسومي إن شاء الله وأنا سيد إلهي كرب سبحانه وتعالى وأنا سيد إلهي كرب وأنا سيد واجبك وسيد اللي نقدوني هديد علمه أم عاف مضحومة أم خطر سوق قاري سواء سومي كرين أمر مركا قاركوت reerkii iyo deganaanshihiisii iyo dhulkan inuu joogno iyo duruufaha ku xararay ay khatar ku iman karto arrimo caynkaas kale qofku marka isaga muxuu sameeynaya qiimeynaya marka isaga qiimeynaya wala tulqu bi aydikum ila tahluka qofku isaga oo waajib sharciya gudanaya in marka waajibka sharciga gudashadiisa ay mafaasid waaweyn ay ka dhalatana meeshan ka hadlad fahmaysaa meel tahay ay mafaasid waaweyn ay ka dhalatana idan loo baahna sharciga islaamka iyo waajibka ilaahay nagu adoonsaday qofku isagoo gudan kara inuu marmarsiyo beena ka samaystana iyana waxaan leenahay de ilaahay ma khiyaamin karno subhanahu wa ta'ala marka bal al insanu ala nafsihi basira wa yuqafka iyo faamiliga iyo reerka iyo dadku iyo iyaga isagu iyo xawaashoodii xaaladooda mas'aladan oo masaa'isha muxuu ahaayay marka qaar kood la ina weydiiyo weeye